أول ما وقفوا كعدي لكن حير من سبعة يوم قبيلة وقو قريبية إن قريبة دي واحد يحكرم هاي البوليس ما يسجلين waxaan go'aansanay markii halka marayso maadaama ay inantaan wadano ay tahay inanta kaliya abid u tartantay ururka qaranada Soomaaliland soola cod ku filan ay haysatay inaan codkeygii iyada siino ku midayno isla markaana gudoomiyaha ururka si gaar ah ugu doorano asbax weyn cadaalad darro badan meesha ka muuqata waxaan leenahay hal lagu noqdo arinta dib hal loo hagaajiyo xeerka la sameeyna waa xeer baayasa ama cadaalad darro ku dhisan goboleysi iyo qabyaalada iyo nidaam xum ku dhisan yahay iyadoo tiradaas la sugay markii aan hoolka tagnay waxa soo baxday 750 qof oo dheeraada in doorashada tan aanay ahayn mid lagu dhaqmi karo in doorashadan tan dib loo dhigo in wixii qaldaada ee la galay la soco afduub uu ekaaday tirada meesha fadhida 3 jeer baa la kala sheegay tiro qaldan oo dadka codeeyay mar walba dad baa dheeraad ah 400 baa fadhiya tirada meesha fadhidana waxay ahayd 341 hool jari baa dhex socday meesha marka doorashadaasi doorasho sax ma noqonayso garyaqaanada Soomaaliland hadaan nahay waanu ka soo horjeednaa waxaanu ka tashan doonaa anagu kooxdeeduna ka tashan doonaa hadii Ilaahay dhaado anagu gobolka Awdal baan ka socdaa marka waxaan u arkayay maadaama dad ku shaqeystaan waxaan doonayaa ku dhawaaqnaa anaguna urur labaad iyadoo aan cid ay khusaysan xukuumadda ka codsan waxaan kii ururkaasi dhahaa in maanta laga bilaabo halkiisa lagu xayiro gudoomiyaha guddoonka inuu jatuub iyo qasab ku waday taasna waa keentay maxay in la qaadaco oo waxa weeye garyaqaanadii nasrinta ay ka soo baxaan shirkina saas ku daawamnay waxaan samaysan doonaa urur gaar ah oo u shaqeeya qaraanada da'da yar leh iyo kuwa isbedel doonka marka hore iyagoo sheegay maxay ahayd tirada 312 ayaa meesha fadhiya ee haddana sheegay codkii codeeyeen 400 gaaliye halka waxa ka muuqata marka in meesha ay ku jiraan kaar badan musuqmaasuqa oo meesha la dhex socdo arinta markii ka caawda maxay musharaxiintiina waxba warigiisa waayay way u jooji waayeen raxiim anigoo xogayo guud u tartamay doorashadaasi waanu qaadacnay sababtaan ku qaadacnay waxa weeye shirgudoonkii doorashada oo kitaab Ilaahay ku dhaartay kitaab kuma dhaaran mobile bay ku dhaartay marka hore kitaab kuma dhaaran mobile bay ku dhaartay marka labaad waxa saaka la tiriyay oo markaan hoolka soo galayna anaguna aan joognan marxaati u ahayn oo la tiriyay tirada dadka ergeyga ka qayb galaya iyadoo tiradaas la sugay markii aan hoolka tagnay waxa soo baxday 750 qof oo dheeraada ninka 750 qof si daayma doorashan ku aaminayna anagu waanu qaadacnay baan leenahay ururkii soolana anaguna urur baan ku dhawaaqi doonaa sooldan labay noqon doontaa anaga cidina afduubi mayso qof la afduubiyana ma jirto qof walbana waa xor waxa weyn xeerkana cid gaar ah soo sameysay doorashadaas ku qaadacay ka maanta hoolka maasoor ka dhacay na wuxuu ahaa mid danta qareennada iyo danta guud ee Soomaaliland ka soo horjeeda annaguna danta guud ee qareennada Soomaaliland ka shaqeynaynaa wadada saxda ah ee qareennadu heshiiska ku yimaad raaci doonaa hanka dhalinyarada soo koraysaan ka shaqeyn doonaa kaarasha labada ah ee halka lagu codeeyayna dhinaca qulaha watayna waan diidnay waxaan samaysan doonaa urur gaar ah oo u shaqeeya qaraanada da'da yar leh iyo kuwa isbedel doonka nidaam buu lahaa qareennadu si dooni jiray gudoomiyaha markaa qaab nidaam baa loo doortay kii ka horreeyay nidaam baa loo doortay kii ka soo horreeyay nidaam baa loo doortay systemkii wax doorashada gudoomiyaha qareennada loo dooran jiray waa laga leexday xeer aan meelna haysan oo gobollo ku dhisan oo qareennadii qabyaalad geliyey ayaa halkan lagu soo dhowdhowtay mana dhici karta taas sidii cadaaladda ahayd ee horeba loogu dooran jiray qareennada in loo doorto weeyaan gacantaagi laakiin xeerkan booshaqa iyo gobollaysigan iyo qabyaaladdan ما هو عند قدورة كرو. هذا حير يقبل الله ما كان لها. سيدي هلا القدومية ودورني عقبال القدورة يفضل. عندي دولة سعود عضلة عندي كلا عضلة يسون. قام كل نظام كي عدالة هذا هلا اللي قدورة تري. عيال قال لي سيدي هدي له راعيه. صح وياه. هذا الحسن جيل سفر. وعزوج كذا يقام كي قدومية هاي مثل هذا كي كوري لا كي كوري لا النظام كي صنع له مروح. أول ما وقف كعدي. لكن حير من سبعة يوم قبيلة وقريبية قريلتي واحد يحكرم هاي البوليس بسم الله الرحمن الرحيم waxaan kale waxaan shir gudoonka ayaa u sababa waxay sameeyeen cadaalad darro waxay sheegeen tiro dheeraad inay ay fadhiyaan hoolka fadhiyaan
taasaa keentay in shakiga abuurto aan ku kalsoonaan weyno waxaanu arkaynay tiradii markii hore la tiriyey iyo tiradii dambe soo baxday in farqi weyn u dhaxeeyo taas waxa weeyaan cadaalad darro badan baa meesha ka muuqata waxaanu leenahay ha lagu noqdo arrinta dib ha loo hagaajiyo xeerka la sameeyana waa xeer baayasa ama cadaalad darro ku dhisan gobolaysi iyo qabyaalada iyo nidaam xumo ku dhisan yahay waxaanu leenahay meesha waxa laga wada saaro xeerka dib ha loogu noqdo kalfadhi aan kalfadhigan hayna dib ha loogu qabto shaqo hal qaybiyo horta shalay toole qaranada badankoodu ma haysan anigu maanta ayaan helay xeerkan runtii waqti aan ku akhrino aan ku darisno oo aan kaga doodno nalama siin waxa la arkay halka golaha dhexdiisa wada arkayseen in qof loogu yeedhay aan dadka hadlay baan kamid ahaa qodobadii aan tilmaanay xataa lama wax marsax marka waxaan leenahay gabagabada maxaa soo jeedinaysaa waxaan soo jeedinaynaa shirka dib ha loogu noqdo waa arrin aad u xun baa dhacay waxa dhacay musuq baa dhacay kaadho badan oo la soo isticmaalay la soo dabacay baa dhacay waxa jira dad aan qareenahayn oo holka laga soo bixiyay baa dhacday xor iyo xalaal doorasho ka muuqanayso meesha ka dhacaysina ma isi jirin waxaan go'aansanay markii halka marayso maadaama inantaan wadano ay tahay inanta kaliya ee abid u tartantay ururka qaranada Soomaaliland soola cod ku filan ay haysatay inaan codkeygii iyada siino ku midayno isla markaana gudoomiyaha ururka si gaar ah iyada ugu doorano anagoo gadaal ka soo sheegi doona goobta xeel aan ku dooranayno ee xafladeedu ka dhacayso ee aan ku calaamad saarayno gudoomiyaha xaqiina waa Nasriin Cabdishakuur ee ka qayb galiyay shirweynihii lixaadii ururka qaranada kana socda gobolka Togdheer ee waxaan ka hadlayaa xeerkani ma aha mid lagu dhaqmi karo ma aha mid garyaqaanada waqti la siiyey ma aha mid si fiican looga fiirsaday waa go'aan la iska gaadhay oo aan si fiican looga fiirsaday oo kala qaybinaya gobolladii oo aanba garanaysaa lagu salaydhin cadaalad iyo in uu ururka qareennadu ahaado mid dhisan oo aan kala qaybsanayn markaas waxaan anagu soo jeedinaynaa in doorashada tan aanay ahayn mid lagu dhaqmi karo in doorashadan tan dib loo dhigo in wixii qaldaada ee la galay la soxo ugu horeyn waxaanu qaadacnay doorashadii aanu gali lahayn saaka kadib markii aanu aragnay musuqmaasuq jira oo ay ka mid yihiin in kaadhar la soo daabacay aanaan ogeyn hoolka la soo geliyey oo ay ka mid yihiin gudoomiyihii guddida wax kala saariyay inuu moobil ku dhaartay oonu wax kitaabe uu maray haba yaraata aanay jirin kadib ninkaas anaga cadaalad nooma qaadi karo anaga iyo gudoomiyahayagii Nasriin ee aanu wadanay waxa aanu halkan ka cadaynaynaa inaana wax doorasho oo ka qayb galayna aanay jirin anigoo ka mid ah garyaqaanada maanta ka soo qayb galay shirka doorashada waxaanu aragnay kaarar huursan iyo dad badan 352 xubnood baa galay shir gudoon ku dhawaaqay markii dambe waxa uu sheegay in 400 oo ergey meesha ay fadhiyaan isaga afkiisa ka sheegay kalsoonidana burburiyay waxaanu leenahay shir gudoonkaasi cadaalad ma aha xeerkana wuxuu doonayaa inuu qasab ku baas gareeyo hogaankana wuxuu doonayaa cid uu wato ee isaga soo xulatay in uu ku dhiso meesha sidaa darteed waxaanu leenahay shirkaasi ma aha shir xalaal ah xeerkaasina ma aha xeer anfacaya qareennada iyo garyaqaanada reer Soomaaliland shirkaasina ma aha mid aanu ku kalsoonahay kuna qanacsannahay maanta waxaan isugu nimid shirkii maalintii labaad buu ahaa wuxuu ahaa doorashadii qareennada waxaanu ku dooranaynay hogaankii qareennada ajandaha shalay toole waxa ku jira in xeerka laga doodo xeerkii ajandaha uu absaamay maanta codsi laga codsaday dartii waa ku darnay laakiin xeerka sidii aanu doonaynay looma sharaxin loogana mana doodin afduub uu ekaaday tirada meesha fadhida 3 jeer baa la kala sheegay tiro khaldan oo dadka codeeyay mar walba dad baa dheeraad ah 400 baa fadhiya tirada meesha fadhidaana waxay ahayd 341 taasi waxay ku tusaysaa in kaadho dheeraad ah iyo meesha musuq uu ku jiro musuq maasuqa in meesha laga saaraan anagu doonaynaa inta uu ku jiro musuq maasuqaasina doorasho diyaar uma nihin mana gelayna anagu doorasho maanta aanu balansanayn inuu shirweyne ururka la qabto markii aanu nimid basaaka waxaan keenay kaadhad laba magac leh oo isku kaadha kadib markii dacwadda loo gudbiyey waxay leedahay waa niman isku magaca oo annagaa garanayna 3 magac 4 magac idinka qofka lagu kala saari karaa gudaha markii la galay loo codeynay xeerkana mid madow badan ku jiray tusaale ahaan qodobkiisa 6 fiqada labaad waxay sheegaysaa in bar association-ka qoriga uu jiray
qaar association marka laga hadlayana xeer baarlamaan baa lagu asixiyaa wax suurtagal oo macquulana maaha ururka soola waa imika waa NGO project sii kara sidaa daraadeed maadaama dad quli ku shaqaystaan waxaan doonayaa ku dhawaaqnaa annaguna urur labaad iyadoo aan cid ay khusaysay karta xukuumadda ka codsan waxaan kii ururkaasi dhahaa in maanta laga bilaabo halkiisa lagu xayiro inta ku kala baxay أنا قريقان إدريس فرح موسى كان السعودة قبل كعودل أنا حبني هجان كورك وريجيني حلك وريجيني مانتا ساكا وحنا من دور الشذا قل هرايان مني ونقول كسوق اللي وحال الديدي إن مركي هرايل جاكريو أو دتك أيدي جو دي كار كود اللي جاكريو مركي الماشي اللي قلي وحال حير كي بلا صوصاري حير كان لانسحيني حير كاسيوحها مد أين قريقان نضر دمان تود أين سو آخرين وأنا لفاقدين markii doodii xeerka la galayna qodobo fara badan iyo dood fara badan ba ka dhacday soo jeediyeen xeerkaasi waxa lagu diiday si duuduuba iyo loo diiday oo dhammaan ergooyinkii meesha fadhiyay majority ahaan ay xeerkaasi ay ku diideen dabadeed xeerkii markii la diiday waxa dhacday in shirguud doonkii oo dhinac u badan ay yiri waxa fadhiya meesha waa codeeyay 400 oo qof ay jooga ergada meesha saxda gobolada ka timid 400 ma ahayn iyo Soomaaliland oo dhan waxay 327 qof ahayd musuqmaasuq iyo ku jiray kaarar fara badan oo fara ku sameeyay jiray fooljeeri ba dhex socday meesha marka doorashadaasi doorasho sax ma noqonayso garyaqaanada Soomaaliland hadaan nahayn waanu ka soo horjeednaa waxaanu ka tashan doonaa anagu kooxdeeduna ka tashan doonaa hadii Ilaahay dhaado anagu gobolka Awdal baan ka socdaa marka waxaan u arkayay meeshaas in cadaalad darro ka jirto kaarar badan oo fooljeeri ah ayaa dhex socday meesha marka arrintaasi loo noqon maayo doorasho sax oo xalaal ah inay dhacdo ayaanu anagu doonaynay tiina kama dhicin meesha waxa maanta meesha ka dhacay wax aan dhaqanka ururka qaranada aan ku jirin shirgudoon marka horeba cid iyadu ay dooratay ahayd oo la qalday procedure shirgudoonka inay si guud loo doortay ahayd shirgudoon hal dhinac codeeyeen bay ahaayeen kaga darantana waxay sameeyeen doorasho jujuuba oo waxa way tirooyinkii qaranada iyadoo aan la sugin ay haddana yiraahdeen 400 baa jira kala hadal badan baa ka soo baxay taas shaki gelisay waxa kale meesha ka jirta gudoomiyaha shirgudoonka inuu jujuub iyo qasab ku waday taasna waa keentay maxay in la qaadaco oo waxa way garyaqaanadii nasriinta ay ka soo baxaan shirkina saas ku daawamnay waxaan imika meesha ku jiraana waa garabkii dhinaca kale waxaan dadka u sheegaynaa in shir dhameystiran oo laba dhinac dhameystiran yihiin oo sida caadi ahayd soo loo dhameystiran tahay jirin oo ay goboladii wixii dhambe ka maqan yihiin hal dhinac ay doorteen ayaan bulshada u sheegaynaa wax ka jiraana ma jiro dhinacaasna matalo soola ilaa iyo maxay xal dambe iyo shirgudoon dambe la soo dhiso doorashada ka qaadaan mushtu tahay koobistookii maxay bishii July waxaan joognaa oo nimid howlkii maxay shirka ka socday shirka qareemadu maxay Mansuur halka wax ka dhacday wax ka dhacday halka khilaaf wada ka dhacay qiyaama ka dhacday meeshaas shirgudoonka wax noqday shirgudoon aan ahayn dhaxayn oo dacad ahayn dhinac bay ka ranaayeen tirada sheegeen marka hore iyagoo sheegay maxay ahayd tirada 312 ayaa meesha fadhiya ee haddana sheegeen codkiina codeeyeen 400 gaariye halka waxa ka muuqata marka in meesha ay ku jiraan kaarar badan musuqmaasuqa oo meesha la dhex socdo arrintan markii ka caawda maxay musharaxiintiina waxba dhigaysi waayeen way u jooji waayeen marka waan qaadacnay saasaan uga baxnay haddana ururka maxay ahayd ama qaranada Soomaaliland dhammaan gobolada Soomaaliland waxay qaadaceen waxa ka soo baxay halka waxaan ku soo ku shaqeynaa maaha cadaalad ka dhacday wixii ka soo baxana waxaan qaadanay maaha